والصلاة والسلام على رسول الله. marka hore waxaan u mahadnaqaynaa Ilaaha weyn ee waaxidka ah in nabadgelyada iyo nimcada inagu manaystay. mar labaadka waxaan halkan ka jeedinaynaa annagoo ah xildhibaanada beesha harti ee ku soo baxay golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland. waxaanu halkan ka jeedinaynaa fariin aan u dirayno dadka Somaliland iyo baarlamaanka u soo baxay Somaliland. marka koowaad waxaanu cadeynaynaa xildhibaanadii u soo baxay beelaha bariga Somaliland inay yihiin 6 xildhibaan 5 kamida aanu halkan ku taaganahay oo aanu ka soo baxnay xisbiga kulmiye annagoo ka soo kala baxnay xisbiga shantayadu ka soo baxnay gobolada Sool Sanaag iyo Togdheer ee ay degaan beeshaasi guud ahaan. shantayadan xildhibaan waxa u soo baxay beesha 6 xildhibaan 6 xildhibaan waxa naga maqan 1 xildhibaan oo xisbiga wadane ka tirsan. marka waxa weeye fariintaanu gudbinaynaa aanu codkayga ku gudbinaynaa waxa weeye inaanu shantayada xildhibaan aanu ku dhawaaqayno kursiga ra'iisul baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland markii Somaliland si isfaham wax ku qaybsatay inaanu kursiga beelahaan iyo deegaan ahaan bariga Somaliland ba aanu maanta anagu leenahay. ma heshiis qoran laakiin waa heshiis isfaham oo lagu soo dhaqmayay intii ay Somaliland jirtay oo dhan. maantana waxaanu leenahay cidinayay isku dayin inay heshiiska isfahamka ah baalmarto. haddii la baalmaro waxay dhacaysaa inay Somaliland sawirkeeda sawir xun ka bixiso. marka koowaad waxaanu leenahay arintaas waxaanu ka diraynaa digniin kursiga ra'iisul baarlamaanka shirgudoonka baarlamaanka waxa iska leh beelaha bariga. mar labaadka annagoo 5 xildhibaana iyo isku xisbigayagii waxaanu isla garanay annaga iyo xisbigayagii iyo guud ahaan inuu musharax noo noqdo Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir oo dhinacayga taagan inuu kursiga musharax u noqdo. waxaanu ka codsanaynaa baarlamaanka Somaliland u soo baxay inay arinta taageeraan gobol kasta ka soo baxeen. fariinta aanu gudbinaynaa waa taa. waxaanu u aragnaa inay midnimada Somaliland wax u tahay. waxaanu u aragnaa inay wadajirka shacabka Somaliland wax u tahay. waxaanu u aragnaa inay horumar u tahay Yaasiin oo isna anina aqoonyahana waaya araga ilaa intii Somaliland jirtayba dadkii Soomaal gashaday xoog iyo xoolo iyo waqtiba soo galiyay uu yahay ayaanu maanta fariintaanu gudbinaynaa. waa fariintaas aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa shacabka Somaliland doorashadii bila turxaanta ahayd ee la soo galay. waana mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.